السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا عداوة جرافيكس maanta waxaan idin hayaa cashar ku saabsan sida u sameyn lahayd cover book qurux badan ma sameyn doona. Waxa lagaga baahan yahay inaad soo degsato sawir background ah iyo sawir qof ama adiga waxaad ka dhigan kartaa ama caleen baa ka dhigan kartaa ama waxaad ka dhigan kartaa. Hadda labada sawir marka hore sawirka waxa kala soo degaysaa ama background waxa kala soo degaysaa unsplash.com waa sawir free ka helaysaa halkaas oo qurux badan aad u badan nooc walba ha ahaado soo free ka helaysaa. Marka halkaas kala soo degaysaa sawirka kalena waa la soo degay already sawiradeedan waa la soo degay hadda. Marka xigtana waxaan sameynaynaa new document baan sameynaynaa control m baan dhahaynaa kadibna waxaan sameysanaynaa halka millimeter baa ka dhiganaysaa kadibna width waxa ka dhiganaysaa 152.4 height-kana waxa ka dhiganaysaa 228.6 resolution-kiisana labaha noqdo RGB hada color mode-kiisu. marka intaas waa okay. kadib waxaan dhahaynaa create. hadda create waa niri waa ujeedaan markaad create gareyso saan amal buu kugu soo baxaya. marka xigta waxaan soo degsanaynaa waxaan la soo degaynaa maartay sawiradeena ma soo gashanaynaa meesha. aan hadda laba sawir baan soo degsaday. sawirka koowaad waa kan, sawirka labaadna waa kan. kore okay dukan. marka xigtana waxaan sameeynaa sawirkan soo degsanay soo gashanaynaa meesha. okay kan horta meesha noo dhig kan madaxweynaha marka horeysa meesha aan ku dhameystirno control t baa dhahaysaa si aad transform-ka u sameysid. kadib okay halkaas waa joogaa marka loo geenaysaa dhexdan ugu beeg marka okay. hadda waa ka sawirkii dhexda waa joogaa. marka xigta kana tagaynaa waxaan geenaynaa halkaas control t baan dhahaynaa kadibna waxaan hoos baan wadaynaa. marka wax saad u jeedaan halkaas sawirkii madaxweynaha waxa ka koreeya sawirkii background-ka ahaa. si aan sawirka madaxweynaha u muujino anagoo aan background-kana waxaan ka isticmaalayna waxaan tagaynaa background-kan dooranay sawirka background-ka aan u soo gashanay waan dooranayna kadibna print option-kiisa waxaan ka dhigaynaa highlight. okay hadda wada artaas labadii sawir waa iska dhex muuqdaan. sawirkan asagoo meesha ka bixin baan kan ka dhex aragnaa. marka sidoo kale waxaad sameyn kartaa opacity-giisa yareyn kartaa. meelaha nooga dhig 60% meelahaas nooga dhig. marka xigta waxaan sameysanaynaa rectangle si aan halkan waxaan ugu boog oraah kamida aan kor ugu qorano kadibna ciwaanka boog halka ku qoranaynaa kadibna qoraaga halka ku qoranaynaa. marka hore waxaan sameeynaa rectangle kan soo dooranaynaa rectangle tool kan soo dooranaynaa kadibna waxaan tagaynaa halkaas saasaan u jiidaynaa kadib wakan colorkeeda haday ay saan oo kale ku soo baxdo ku dooran yahay waxaad sameynaysaa waxaad tagaysaa properties-kaas halka ay ku taal kadibna waxaad tagaynaa fill option-ka kadibna waxaan sameynaynaa color baan halka soo dooranaynaa. okay color-kan rabnay weeye. marka waxaan halkan soo dhiganaynaa qoraalka aan rabnay inaan meeshan ugu talagalnay. marka qoraalka hadda aan waa qortay waa kan control c baan dhahayaa control c baan dhahaynaa kadibna waxaan dhahaynaa control v. okay position-keeda halka edit. marka position-keeda halka tagna waxaan ka bedelaynaa color-ka double click baan siinaynaa kadibna waxaan tagaynaa color-ka waxaan daynasan qurux badan color qurux badan baan raadsanaynaa nooga dhig. waxaan bedelaynaa background color-ka ama rectangle color-kiisa bedelaynaa waayo isagaan si fiican wax looga dhaxal keenay. rectangle-ka tagaynaa kadibna waxaan tagaynaa okay waxaan filayaa inuu qurux noqdo haddeer saas qurux badan yahay. okay
sa rectangle-ka labaad usoo gashano waxaan sameyn karnaa inaan kan koobiyeyno. Alt qabanaysaa kadibna waad jiidaysaa si uusan kaaga qaloocan shift la taabo. kadibna control T dheh. Okay, control T markaad tiraahdo oo jeedaa wuxuu u sameysmayaa dimension buu sameynaa oo isku xiran yahay dhinac walba ka xiran yahay. Marka waxaan sameyn karnaa inaan unlinked aan halka ku dhufano kadibna aan dhinaca rabna u weyneyno. Okay, sidaan filaya hadda waa caadi. Okay, markaas waxaan sameynaynaa halkan waxaan ugu talagalnay title-ka ama buugga magaciisa halka ugu talagalnay. Marka waxaan sameynaynaa opacity-geedan yareynaynaa, waxaan ka dhigaynaa very low. Ilaasan ka dhigaynaa 50% inooga dhig. 50% inooga dhig halkaas. Okay, waa caadi hadda waa kaasa. Marka horeysa waxaan sameynaynaa ciwaanka qoranaynaa. Markaas si aad ciwaanka u qoratid halka aan selected waxba ku doornaanin kadibna waxaad sameynaysaa tab tool-ka tagaysaa kadibna waxaan ku dhufanaynaa waxaan qoraynaa halkaas. Waxaan ku qoraynaa gool wade. Control N oo dheh. Halkaas waxaan nooga dhigaysaa Aramis. Fartan waxaad kala soo degi kartaa Google-ka kala soo degi kartaa waa free. Aramis italic taasaan ka dhiganaynaa. Halkaana maxaan ka dhiganaynaa 71.94. Okay, waa kan hadda waa kaas qurux noo noqday. Xogaa maartay farta laga yaray. Waxaan moodaa inay aad noogu badatay. Waa yar naga yaray. Okay, halkan noogay waa yar kor noogu qad. Waa kaasa hadda waa qornay baa sida ujeedaan. kadibna waxaan sameynaynaa qoraal kale aan qoraynaa kan noo soo qaad nooga soo koobiyey ama control C ama alt inta qabad soo jiid. Halkan waxaan ku qoraynaa madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed. Kadib waxaan sameynaynaa waxaan dhahaynaa size-keeda naga yaray. Roboto waxaan ka dhigaynaa roboto medium ba ka dhigaynaa. Okay, aad u yaryartaa waa ujeednaa. Waxa yar baan ku daraynaa. Okay, korna ugu qaad wax yar. Okay, subtitle-ka waa sameynay. Sidoo kale waxaan sameynaynaa wax ninka qoray magaciisa aan ku qoraynaa meesha. kadib kana noo soo jiidaysaa halkaas aan dhigaysaa. waxaa qoray baan ku qoraynaa. waxaa qoray control A leh kadib naga yareeyo wax yar. farta waa bedeli kartaa waxa harta ka dhigi kartaa adigu farta ugu qurux badan adaa doorashadaada iska leh. marka waa ka saada waa kan centerkana mar walba inay ku joogto hubi. marka rectangle-kana sidoo kale soo jiidaynaa altaan qabanaya kadibna waa soo jiidaya si uu iskaga qaloocan shift baa la qaban kartaa. control T baan dhahaynaa kadibna waxaan sameynaynaa waa yareynayna. waxaa qoray qoraaga magaciisa halka ku qoranayna. marka qoraa
Mohamed Ali okay filayaa halkan waa laga khaldan Ahmed Ali okay marka horeysa noo door halkan waxaan nooga dhigaysaa Aramis italic okay halkan waxaan noo weynay hoos noo dhig okay hadda waxaan filayaa inay xogaa qurux noqotay sidoo kale waxaan sameynaynaa waxaan ku daraynaa drop shadow si macnaha ay meesha farta qurux noqoto looga dhex arko meeshan marka horeysa waxaan tegaynaa mid baan title-kan ugu soo hormaraynaa si aad halka u tagtid laba si waa sameyn kartaa inaad right click inta dhahdid aad ku dhahdid blended option ku dhufatid daaqadan ku soo baxaysa sidoo kale waxaad sameyn kartaa inaad halka inta tagtid double click siisid kadibna meeshii uu ku geenayaa drop shadow noogu dar drop shadow opacity-giisa waxaan ka dhignay 72 distance-giisa waxaan ka dhignay 4 spread-giisa 29 size-giisana 10 baan ka dhignay ana hadda sidiisaas u deysanayaa okay si farta kalena mid walba inaan qurxiyo uma baahni marka waxaan sameynayaa right click baan dhahayaa copy layer style baan dhahayaa kadibna waxaan tagayaa kuwa kale tagayaa paste layer style baan ku dhufanayaa kadib sidoo kale waxaan tagayaa fartan kale paste layer style baan dhahaynaa wax yar kadib tan waa edit garanaynaa drop shadow-geeda spread-keeda wax yar inayna okay waxaa qoray baan noo hadhay waxaa qoray iyadana saadhay right click dheh kadibna paste layer style okay waxaan filayaa hadda inay xoogaa qurux noqotay right click baan dhahnaa paste layer style okay waxaan filayaa hadda inay qurux noqotay waxaa noo dhiman waxaan ku daraynaa sidoo kale rectangle baan kusoo darsanaynaa rectangle-kaasaan ku darsanaynaa kadibna centerkan geysanaynaa okay center baan geysanaynaa kadibna waxaan sameynaynaa properties-kan ku dhufanaynaa kadibna fill-ka waxaan ka dhigaynaa none stroke-na waxaan ku daraynaa color baan ku darsanaynaa color-kan isticmaalay midkaas baan ka dhiganaynaa kadibna stroke-giisaan siyaadinaynaa aad buu uga taadmada akas okay hadda masha Allah weeye marka waxaan sameynaynaa kuwan rectangles-kana waxaan sameynaynaa waa wada dhammaystiraynaa si ay baalka hoostiisa uga galaan noo soo dhawey control plus dheh kadib control T baan dhahaynaa hadda waxaa noo dooran farta saa ujeedaan waxaan dooranaa rectangle-ka control T baan dhahaynaa kadib okay hadda kaas waa noogu dhammaystiran yahay sidoo kale kanaan sameynaynaa control T baan dhahaynaa control T noo dheh kadib noogu dhammaystir dhinacan kalena noogu dhammaystir okay waxaa caadi asaguna waa ujeedaa kanaa noo soo haray control T noo dheh kadib noo dhammaystir kan dhinacan kalena noo dhammaystir okay waad aragtaa hadda quruxdu noo noqday coverkeena quruxdu noqday waxaan noo haray oo keliya hadda farti waa qurxinay coverkeena waa diyaarsan yahay waxaan sameynaynaa coverka markaad
diyaarsatid waxa loo baahan yahay inaad soo bandhigtid. Si aan u soo bandhigno waxaan isticmaalaynaa mockup. Free mockup waxa kala soo degi kartaa www.freepik.com. Freepik markaan tagno waxaan ka helaynaa halkaas waxaan ku qoranaynaa cover book mockup. waa kan sida noo soo saaray. Okay deh kadib waa kan boqolaal baad helaysaa free oo aad isticmaali kartid oo free mockup marka halkan aad kala soo degaysaa mid gaarta la soo degaysaa mid gaartaan kala soo degaysaa. anigu hadda waa la soo degay marka waxaas uma baahni. waxaan sameynayaa control oo baan dhahaysaan u soo qaado kadibna waxaan tagayaa meesha igu jiraan ama waxaan sameynayaa meesha download iskan tagayaa kadibna waxaan ku dhufanayaa waxa igu qoran halkan aan ka baarayaa. Okay baakan mockupkii waa noo diyaarsan yahay. marka waxaan sameynaynaa horta waxaan ugu celinaysaa cover bookgeeni kadib waxaan sameynaynaa rectangle-ka ugu sareeyaan dooranaynaa kadibna sawirka ugu hooseeyo oo madaxweyne farmaajo baan click siinaynaa shift baan qabanaynaa click baan siinaynaa kadib markaas waxaan sameynaynaa right click baan dhahaynaa convert to smart object marka u beddelno waxaan sameynaynaa waxaan ku laabanaynaa mockupkii place your design here marka meesha ku qoran tahay ku dhufanaysaa double click baa siinaysaa markaas kadib naga qarib sawirkaas marka waxaan sameynaynaa waxaan soo qaadanaynaa design-keeni waan soo qaadanaynaa place design here. Okay saa u jeedaan hadda waxayni waa isku dhex qaldameen marka waxaan sameynaynaa control T baan dhahaynaa linkina soo kan xir si uu sanaga qalaacan. Okay filayaa inuu yara qurxaanaaday kadib waxaan sameynayaa meesha control 0 aan dhahayaa hadda maaragtay aan wax arki waayo kadib okay baan dhahayaa. waa kan sida aragtaan hadda meesha waa noogu dhammaystirmay. waxaan dhahaynaa markaas kadib control S wax yar baa sugaysaa wuu save garaynayaa wuu save gareeyey markuu save gareeyo waxaad tegaysaa design-kii kala ku laabanaysaa kadib waa kan waxa yar waxaan sameynaynaa uu naga qaloocan yahay. waxaan sameynaynaa sawirkeena xagga u turkinaynaa xoogaa. Okay control S noo marka waa kan design-keena waa kan qoraalka laga dhigay. waxaan filayaa adna inaad isku dayi doontid. intaas casharkeena ku eegaya maanta fadlan subscribe noo sar channelkeena mahadsanid.